guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka ayaa si adag u cambaareeyay xadgudub iyo sidoo kale bahdilaad loo geystay gabar Soomaaliyeed gudaha magaalada Muqdisho. Guddiga ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay hay'adaha amniga iyo sidoo kale kuwa cadaaladda inay si degdeg ah u furaan baaritaan hufan oo dhexdhexaad ah isla markaana sharciga la hor keeno dadka ku lugta lahaa falkaasi, taasoo si weyn warbaahinta bulshada loola wadaagayay. Badi mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka ayaa waxa ay si weyn uga hadleen arrintan, taasoo dhawaan gudaha magaalada Muqdisho ka dhacday kadib soo dhaweyn loo sameeyay mid kamid ah dadka caanka ah baraha bulshada, taasoo shakhsiyaad dhalinyaro ah ay falkaasi xadgudubka ay kula kaceen gabar ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed soo saareen guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka ayaa waxaa lagu yiri waxa si adag u cambaareynayna xadgudubka iyo bahdilaadda loogu geystay gabar Soomaaliyeed gudaha magaalada Muqdisho iyadoo lagu tuntay karaamadeeda, asturnaanteeda iyo xuquuqdeeda aasaasiga ah, isla markaana muuqaalada falkaas lagu baahiyay baraha bulshada. Falkan waxa uu ka dhigan yahay xadgudub culus oo ka dhan ah karaamada aadanaha iyo xuquuqaha uu damaanad qaadayo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka. Faafinta muuqaalada noocaani ah waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada soo gaartay dhibanaha. Sidoo kale, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka, Dr. Marian Qaasi Axmed ayaa tiri tacadigan waxa uu si cad uga hor imaanayaa karaamada aadanaha iyo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka. Waxaa laga maarmaan ah in si degdeg ah loo baaro dhacdadan lana hubiyo in dhammaan dadka ka mas'uulka ah la hor keeno cadaaladda. Sidoo kale, guddigu waxa uu ugu baaqayaa hay'adaha amniga iyo cadaaladda in ay sameeyaan baaritaan degdeg ah, hufan oo dhexdhexaad ah, isla markaana ay sharciga horgeeyaan cid kasta oo ku lug leh falkaas. Sidoo kale, war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo haysa xog la xiriirta dhacdadan inay la shaqeyso hay'adaha ay qusayso, halka bulshada looga baahan yahay inay ka fogaadaan faafinta ama dib u faafinta wax kasta oo dhaawacaya karaamada iyo asturnaanta dhibanaha. Sidoo kale, war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri tacadiyada ka dhanka haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaa weli ah walaac weyn oo dhinaca xuquuqul insaanka ah. Habeeney kasta waxa ay xaq u leedahay inay ku noolaato nolol ka madaxa bannaan gacan ka hadal, bahdil iyo xadgudub. Ilaalinta karaamada, badqabka iyo xuquuqda haweenka waa mudnaan qaran. Sidoo kale, war-saxaafadeedka ay soo saartay guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay guddigu waxa uu garab taagan yahay dhibanaha iyo qoyskeeda, wuxuuna dib u xaqiijinayaa sida ay uga go'an tahay difaaca xuquuqda aadanaha, horumarinta isla xisaabtanka iyo xaqiijinta cadaaladda. War-saxaafadeed ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhacdadaani ay si weyn warbaahinta bulshada iyo sidoo kale Soomaalida ay u gilgishay.